السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal kuna soo dhawaada kanaalkeena Amir Deg. Insha Allah maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay 5 farsamo ka baro TikTok. Haddaba haddii aad tamar kursa kanaalka soo booqatay, fadlan waxaynu ka codsanaynaa inaad kanaalka subscribe saarto, muuqaalkana kiiloon markaasi inaad like noo saarto. Maanta ayaa waxaan community ku soo bingareeyay yacni labadan muuqaal midkeen soo horeysiiyaa sida iPhone lagu soo dejiyo WhatsApp GP iyo 5 farsamo ka baro TikTok. Haddaba asxaabta aad u tiro badan waxay codsadeen markaasi 5 farsamo ee ku jirto TikTok inaan la soo wadaago. haddaba saaxiibayaal waxaan rajaynayaa markaasi haddii aad horey noola joogtay inaad muuqaalka like noo saartay aan horey u galno muuqaalkeena. waxaan ka tusayaa TikTok anigoo soo galaya markaasi TikTok-ga. haddaba waxaan ka sitayaa markaasi profilkayga. markaan ka sii tago saaxiibayaal waxaan samayn doonaa markaasi inaan ku dhufto 3 falaarood ee isdul saaran. markaad 3 falaarood ku dhufato kadib waxaad ka sii dooranaysaa qaybtan ah settings and privacy ayaad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufato saaxiibayaal waxaad samaynaynaa markaasi inaan qaybtan aan ku dhufano markaasi privacy. markaan ku dhufano yacni qaybtani waxa yacni waa qaybta ugu muhiimsan ee hadda haddii aad tahay TikToker TikTok-gaada yacni lagama aad ka maamuli karto. haddaba saaxiibayaal waxaa jiro haddii aan ku bilaabo markaasi qaybta koowaad oo ah markaasi qaybtan kore taasoo ah markaasi private account. hadduu akoonkaada ee calaamadu furan tahay akoonti ayuu ku yahay keliya oo arkayo asxaabta ma arkayaan yacni waxa arkayo keliya maaragtay qofka aad comment ka bixisay, qofka like u saartay, qofka follow soo dhahday ayaa arkayo. muuqaalada soo dhigto lama daawanayo. marka qaybtan waa inay markaasi off ka ahaato. qaybtan waa inay ka ahaato markaasi off inay ka ahaato. haddaba qaybta labaad ee aan ka tusayana maxay tahay? hadda halkaasi waxaan uga soo gudubnay qaybtii koowaad. qaybta labaad maxay tahay? qaybtan labaad waxayeen qaybtan ay ku qoran tahay contacts and Facebook friends. qaybtan sawirkeedani labadu way furan yihiin. maxay tahay marka? qaybtan contacts ay ku qoran tahay waxa arkayo yacni inta qof lambarkaada u safgaraysan yihiin haddii TikTok soo galaan muuqaaladaada ayaa laga horkeenayaa. qaybta kale ee ayadana Facebook friends-ka ana asxaabtaad Facebook friends-kaada aad ku leedahay ayaa iyadana markaasi la keenayaa. haddaba saaxiibayaal qaabka loo furto muuqaal casharada hadda aan sharaxayo qaabka loo furto waxaa leeyahay markaasi inay ugu adkaato inaad furataan qaybtaas iyo comments-ka iyo qaybta faalada igu soo dhig yacni muuqaal sida qaabka loo sameeyo ayaan ka samayn doonaa muuqaal. haddii aan ka soo baxno markaasi qaybtaasi yacni waxaan ku gudubnay markaasi qodobka labaad oo haddii aad yacni waad iska xiri kartaa waadna yacni waad furan kartaa. oo haddii aad aabaha yacni ama reerkiina ama qof aad ka cabsanayso ehelkiina lambarkaada si garsiiyo TikTok isticmaalo inuu kugu dhex arko fiidiyowadada iska xir. haddaba qodobka labaad saas ayaan uga gudubnay. haddaba saaxiibayaal qaybta saddexaad haddii aan u gudubno markaasi waa following qaybtani yacni qofka aad follow garaysay yacni yaa laga arkin weeyaan. oo haddii aad everyone ku tahay dadka badanaa markay akoonkaada soo galaan qaybta dadka follow garaysay la taabto toos ayuu arkayaan inta qof aad follow garaysay. qaybta markaasi waxayaan markaasi olemi ka dhigo oo qof walba markuu soo galo ma arki karo yacni inta qof aad adiga aad follow garaysay qofku uu yahay iyo dadka ay yihiin. way arkayaan lambarka laakiin dadka ay yihiin ma arkayaan. haddaba saaxiibayaal halkana ka dhiga markaasi olemi haddii aad yacni aad rabto in la arkana everyone ka dhigo. marka halkan olemi ka dhigo. haddaba saaxiibayaal qaybta afraad haddii aan u gudubno iyadana waxay tahay like videos yacni which your video yacni who can which your like videos yacni inta video aad daawatay aad like saartay ayaa markaasi haddii everyone ku tahay dadka maaragtay ku taageero way arkayaan inta qof aad markaasi aad like u saartay. marka qaybtana waxaad ka dhigtaa markaasi only me oo keliya un arag yacni waxaad like-ta aad soo dhigtay. waxaa jira dad badan oo ku eewooway video badan intay like saareen oo yacni adig kasoo qaado kaleeto like videodaad saartay adoo yacni qof ku taageero wadanu ka hadu daawanaya yacni
taasna way daran tahay laftigeeda oo waxa ka dhigtaa markaasi only me ka dhigo only me daas ayaa taabanaysaa saas ayaa ugu dhigaysaa waa qaybta afraad haddii aan markaasi aan uga soo gudubno markaasi qaybta shanaad waa qayb muhiim ah insha Allah video dhammaystiran waan kasoo sameyn doonaa waa security and login way qaybtan hadda markaad gasho waxaan two step verification waa yani two step verification waxayeen waa step yani laba step ayaad maraysaa TikTok-gaada ku xirnaysaa kasoo qaado kaleeto TikTok-gaada markaas lagama jabsan karo aniga waxaan ku xidhay email iyo lambar ayaan ku xidhay email iyo lambar iyo password saddexdu way igu xiran yihiin TikTok-gayga marka qofka hadduu lambarkayga helo waxaa la weydiinayaa password hadduu garan waayo waxaa la weydiinayaa markaasi hadduu password-ka helo waxaa la weydiinayaa emailka hadduu helo yani saddexa step markuu isku maro markaasi ayuu TikTok-gayga markaasi kala wareegi karaa laakiin qaabku adag tahay lambarka iyo emailka ayaa saddexdaas waxa kuu fudud markaasi inaad email ka dhigato kadib aad yani adigu waxa kuu fudud inaad ka dhigato markaasi lambar markaa ka dhigato emailka waxa laga yaabaa markaasi inuu soo daaho marka qaybtan waa qaybta shanaad waa halkaas adigu waxa kuu tahay markaasi turn off marka qaybtan waa qaybta shanaad haddaba saaxiibayaal waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan aad wax badan ka faa'iideen insha Allah intaan ku kulmi doono muuqaal xigo وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.